اوكي كرساني waxaa noqonaysaa qofkii afraad ee u tartamaya saddex gabdhood baa ka horeysay midna gabadhan hadda ku jirtaa laba gabdhood oo horeba u soo qabteen dhaliishiisi iyo fiisaba intan aan gaadhin hawshan aan gadin saddex gabdhood maxaad kaga duwanaan kartaa oo silada kaga duwantaa okay danaan maxaan kaga dubnaan karaa ninba horta khibrad buu ilaahay siiyay laga yaabaa maanta inaan meel ay gabdhaha walaalay saddexda gabdhood walaalay ma shaqeeynin aniga ma dhahay waa gabdho kollaybo tuwa meel bay ka soo shaqeysay meel bay wax ka qabatay meesha ay ogeed inay bulshada u baahan tahay kollay meel ka soo qabatay but aniga waxaan kaga dubnaani karo maxaa waaye horta maxaa jirta waxan waa xoolahaasayto waa ammaano lagu soo aamine inaad adiga dadweynaha aad ugu shaqeyso waxaan uga dubnaani karo maxaa waaye xoolahaas inaan public participation aan u suubiyo aan maaragtay dadka ii sheegaan at least feedback dad ila shaqeynaa marka hore sameysani inaan dadka ila shaqeynaa ii soo gudbiyaan aniga leader waan yes waa li soo doortay amar ilaahi maxaan rabaa dadkaas ila shaqeyna doona staff baan sameysani doona staffka aan sameysto maxaan rabaa inay ii hooseeyaan ay ogaadaan baahida dadka markay ii soo sheegaan ay dhahaan gaabkaas ay too jirtaa meeshan ay baahi ka jirtaa intay baahi ka jirtaa aniga marka public participation aan suubiyo dadweynaha marka intay isku imaadaan ay ii sheegaan ayakana baahidooda ma arkaysaa sidaasaan rabaa inaan ma aragtay inaan uga dubnaado inaan dadweynaha aniga in touch aan noqonaan rabaa marba in noqdo dhaxeeyo marba u adeegida bulshada bulsho qaybaheeda kala duwan inkastoo kursiga dumar gaar u yahay hadana waxa loo shaqeynaa waa bulsho dumar bas kuma dooranayaan dhalinyaro ku dooran hooyooyin baa ku dooran waayeel baa ku dooran intee lag basdi kartana buuxin karto adoon dabcan saa sheegtay governor la shaqeynaysay xafiiska gabanaha iyo bulshada waxa u dhaxeeya ogtahay qof kursi ku fadhiya baahida loo qabo waa ogtahay dhibka loo maro waa ogtahay helitaanka qofkaas adoo intees lag basdi kartaa dabooli kartaa baahida wallahi way adagtay horta sidii baahida 100% lagu daboolo but aniga I will try because haddadan horta dadka mar horena idaacad liiga yeeraan aan ooga sheegay hay'ad baan qabaa oo Faiza Foundation la dhahayo Faiza Foundation haddaba wax baan ku qabtaa ma arkaysa oo maanta ma tusi dadkii ma tusiyo ma dhihi waxaan itaan haya because maxaan rabay inaan the first 2 years oo hay'adaas ayto inaan ma aragtay hooyaday oo dhimatay Allah ya raxma inaan ooga dhigo sadaqa oo eelal baan qode meelal baan iskuul ka hagaajiyay madrasooyin baan meelal aan ka dhidhisay laakiin markii ma aragtay hay'adaydaas markay campaign ay imaato iyo xoolaha ma aragtay government ama dawladda ay soo galaan sida ilaahay igu ogyaho nin walba ma gaari karin laakiin sida ilaahay ugu ogyaho maxaan rabay inaan dadka aan ugu adeego oo aan tuso yacni inaan ma aragtay aan at least 80% ama 90% aan ugu adeegi karo haddii aan arko inay ma aragtay igu yaraato fursad ay haystaan these leaders oo bilcaanta leaderska fursad ay haystaan fursadda ay haystaan maxaa waaye ayagoo dawladda lacag ay siinayso inay haddana wadamada cadaanka maxay qiimeeyaan ma aragtay women leaders ay qiimeeyaan inaan wadamaha cadaanka intay tagaan ay haddana ay u tagi karaan ay dhihi karaan haddii ama women leader dadkii aan xagga ooga soo tagay wax aan ku saacidiyaan rabaa maxay ka sii fiican tahay marka hay'ad aad haysato caawinaad badan baa lagu soo siinay caawinaadda waa added advantage inaad dhulka intaa imaato aad wax ugu qabato dadkaada dhalinyaradii duqeydii ku soo doorteen bilcaanti xuquuqdooda ina u doodo aniga kuma dhahay daaraan dhisi kanaan soo bini diyaaradaan u gada dad kuma dhahay laakiin wixii ilaahay ugu og aan u qaban karo waan u qabanay kuus baahidooda waan sii kasay marka hore sii ogaa